abni iyo waxa ku ilduufinayo waaya arag la'aan مسكين يا عبدالله مسكين يا عبدالله لكن ابا مسكين نقطتي مسا waaya arag la'aan noqotide luqluqyo galay oo la waayay markaan meel ka dhaganay waa gadoodi كلتو عنا ونكسن داود يالكسو دبادة halkan waa horsocod media aad mar ka daawataan barnaamijka duumaanta wuxuu noqon doonaa barnaamijka falanqaynta fanka aan ku soo qaadan doono fanaanada Lucky Xaji Waceys oo mar kale weerar afka ku soo qaaday xaaska uu horay u qabay ninka Nasteex Indo Bito hadda guursaday fanaanada Nasteex Indo ee saaxiibo yihiin fanaanada Lucky Xaji Waceys ayaan barnaamijkeena ku soo qaadan doonaa fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe saaro gambalaalkana furo ee muuqaalkan like saar waad ku mahadsantihiin daawashada aad daawanaysaan barnaamijka isku soo laabasho wanaagsan fanaanada Lucky Xaji Waceys ayaa mar kale afka furtay sheegtay in si toos ah u soo warartay Nasteex Indo arooskeeda waxayna hanjabaad hawada u marsiisay xaaska uu furay ninka hadda guursaday Nasteex Indo oo degan London ciyaari waa galin dambe iyo hadalla hanjabaad ah ayay hawada u marsiisay xaaska Xuseen Bito Lucky Xaji Waceys oo barteeda Facebook iyo Snapchat-keeda fariin culus ugu dirtay naagtii ka dambeysay in xafladda munaasabadda arooska Nasteex Indo la baajiyo bishii hore ee December 24 ayay ahayd markii arooska Nasteex Indo uu ka dhacay dalka Norway ee ka soo qayb galeen fanaaniin aad u fara badan oo fanaaniintaas xataa tikadiyadii laga dhiibay laakiin nasiib xumo waxaa baaqday arooskii fanaanada Nasteex Indo Lucky Xaji Waceys iyo Nasteex Indo ayaa ah saaxiibo aad iskugu dhow waana saaxiibo jecel oo mar walba isku hiiliya Lucky ayaa noqotay fanaanadii ugu horeysay oo ka xumaata dhacdadii xumeed ee qabsatay fanaanada Nasteex Indo Lucky Xaji Waceys ayaa arooska Nasteex Indo ku bixisay qarash badan ee ugu talagashay saaxiibteeda Nasteex Indo Lucky waxay bixisay alaabta guriga oo dhan ee ka soo qaaday dukaanka ee ku leedahay London oo magaciisa la yiraahdo Doctors arooska Nasteex Indo ayaa lagu qiyaasay lacagaha dhammaan ee ku baxeen 60,000 ilaa iyo 50,000 sida la qiyaasay waxaana intaasi u sii dheer meherka Nasteex Indo oo lagu qiyaasay lacago aad u fara badan arooska Nasteex Indo ayaa ahaa arooskii ugu weynaa uu fanaan Soomaaliyeed dhigto laakiin nasiib xumo arooskii wuxuu noqday mid foodo ku soo dhamaaday foodadaas waxaa ka mas'uul ahayd naagtii uu qabay Xuseen Bito ee ka maseersan Nasteex Indo fanaanada Nasteex Indo ayaa barteeda Snapchat ka soo dhigtay muuqaal ay kaga hadlayso in aroos labaad ay dhigan doonaan ayada iyo ninkeeda Xuseen Bito waxayna arooskaasi ay ku dhigan doonaan dalka Ingiriiska cariga ee magaalada London ayada iyo ninkeeda cusub ee Xuseen Bito fanaanada Lucky Xaji Waceys ayaa lagu bartay in mar walba la dagaasho fanaaniin qof walba ku soo xadgudba ee fanaanada Lucky Xaji Waceys sanadka 2018 ayay ahayd mar ay isdagaaleen fanaanada Fadomina ee isla joogaan dalka Ingiriiska caasimadiisa London waxaana la sheegay labadaas fanaan inay si toos ah gacanta iskula tageen isgaraaceen sida la sheegay arooska London ka dhici doona ee fanaanada Nasteex Indo ayaa ka duwanaan doona arooskii hore ee ka dhacay dalka Norway oo qarash aad u fara badan ku baxay laakiin arooskan ayaa la sheegay inuu ka siiraan doono qarashkii hore laakiin uu noqon doono aroos kii hore hataa ka wanaagsanaa hataa waxaa la sheegay in fanaaniin kale ee imaan doonaan ee fanaanada Nasteex Indo ee waxba ticket ee dhiibi doonin fanaanada Nasteex Indo intaasi ayaa ku soo gabagabinaa barnaamijkeena gaarka ah aan ku eegeynay fanaanada Lucky Xaji Waceys iyo hanjabaadaha ee hawada u marsiisay Xuseen Bito xaaska uu la qabo fanaanada Nasteex Indo wixii ku soo kordho arooska fanaanada Nasteex Indo waxaa kala socda
iskaabulnimada. Nasteex Indho waxay doonaysaa arooskeeda inuu noqdo kii ugu soo jiidashada badnaa marka laga hadlayo aroos ama xaflad uu dhigto qof magac iyo maamuus ku leh bulshadiisa. Nasteex Indho waxaa xafladda meherkeeda iyo arooskeeda ku baxaya lacag dhan 35,000 oo doolarka Mareykanka. Intaas kuma harin, waxay qabsatay meherkii ugu qalisnaa taariikhda meher ay qabsadaan gabdhaha Soomaalida ama gabdhaha Afrikaanka ah, waana 3,000 gram dahab ah, oo waana dahabkii halkii gram uu joogo lacag dhan $55 doolarka Mareykanka ah. Nasteex Indho Xuseen Bito ayaa arooskooda dhici doona 23 November 2019 oo ah maalin Sabti ah. Arooskaasi ayaa noqon doona arooskii ugu qaalisnaa gabdho Soomaaliyeed ay qabsadaan, wuxuuna ka dhici doonaa dalka Norway. Nasteex Indho waa gabar Soomaaliyeed kuna heesta afka Soomaaliga, waa fanaanad ku caan baxday heesaha isteelka ah. Fanaanada Nasteex Maxamed Warsame oo ah loo yaqaan Nasteex Indho ayaa hore u guurstay Cumar oo ka soo jeeda beesha Isaaq kadib xiriir jecel dhex maray, balse sheekooyin duugan guurkaasi ayaa jiray baraha bulshada lagu hadalhayay. ninka horey u guursaday fanaanada Nasteex Indho waxay ilma adeer yihiin weriye Sagal Mustafa Xasan Nuur oo iyadana guursatay nin ka soo jeeda beesha Mareexaan reer Diini. Sagal Mustafa oo ah Nasteex Indho saaxiibo yihiin ayaa ninkani bartay, waxayna Sagal sheegtay inay ku faraxsan tahay guurka Cumar iyo Nasteexo halka iyadana wiil beesha daarood guursatay. Haddaba sheekadan ayaa meesha ka saaraysa arrin cunsurnimo ku jirtay siyaasiyiinta Somaliland dhowr jeer sheegeen taasoo ahayd inaysan gabdhaha Isaaqo guursan ragga daarood ama habiye. Arooskan waxaa ka soo qaybgali doona fanaaniin caan ah. Fanaaniintaasna waxaa ka mid ah Axmed Saki oo ay hore iskugu socday xiriir dheer ka dhaxeeyay fanaanada Nasteex Indho oo heeso badan isla soo qaadeen. Waxaa kale arooskani ka soo qaybgali doona Guule Simba oo ah fanaan oo jooga dalka Finland. waxaa kale ka soo qaybgali doona mataanka Guule Simba, Safaan Halac iyo fanaaniin badan oo caan ah. King Jaamac oo ka fanaaniinta Soomaaliyeed ee heesada aadka loo jecel yahay. waxaa kaloo ka mid ah fanaanada Hani UK oo ku caan baxday dheelista qoobka ciyaarka ah, iyo fanaanada loo yaqaano Nimco Yaasiin Warsame ayadana ka soo qaybgali doonta arooskaasi. arooskan waxaa ka soo qaybgali doona Omar Barbar oo dhawaan soo qaaday heesta qabiilada ah iyo heestii Barbar oo hore u kala kacday. waxaa kale ka soo qaybgali doona arooska Nasteex Indho Marwaan Yara oo fanaan Soomaaliyeed ku heesa heesaha afka Soomaaliga, waa fanaanadinta ugu sarsareeya ee sanadkan lagu jiro. wixii ku soo kordha arooska Nasteex Maxamed Indho waxaa kala socon doona Horsocod Media oo mar walba u taagan inay naga soo gudbiso wararkii ugu dambeeyay fanka iyo siyaasadda iyo arrimaha bulshada. fanaanada Nasteex Indho ayaa hore loogu duubay muuqaal anshax xumo oo ka duubay ninkeeda hore u qabay Nasteex Maxamed Indho ee kala tageen, wuxuuna ku faafiyay baraha bulshada. waa arrintaasna ayaa ah arrin aad u fool xumo badan. gabdhaha Soomaaliyeed waxay naga leeyihiin sharaf aad u wanaagsan. wixii ku soo kordha arooska Nasteex Maxamed Indho waxaa kala soconta Horsocod Media. waxaa intaasi ayaa ku soo gabagabeynaa barnaamijkeena falanqeynta fanka. aad ka daawanaysaan Horsocod Media, aad mar walba ka daawataan falanqeynta fanka. waxaa kala socontaa barnaamijyo kale oo ah barnaamijyada falanqeynta fanka. waxaa idinka tagayna sidaas nabadgelyo. fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe saar, muuqaalkana like saar. waad ku mahadsantihiin daawashada aad daawanayso.